guddida kala saarista iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo wali ku guda jira sidii ay u kala saari lahaayeen ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa saaka waxay ka bilaabeen halkan oo ah magaalada Berbera caasimadda gobolka Saaxil kunka qof ee lagu xidhay urur siyaasadeed kasta. Halkani waa goob loo asteeyay urur siyaasadeedka Barwaaqo isla mar ahaantan saacadii ugu dambeeyay ku diyaar galoobayeen taageerayaasha urur siyaasadeedka Barwaaqo. Kumanaan kun oo kamid ah taageerayaasha ururkaas oo iskaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Berbera ayaa goobtan oo loo asteeyay ururkaasi soo gaadhay hal mar. Waxa iyaguna goobtaasi yimid guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo markiiba halkaasi ka bilaabay tirinta iyo madax taabashada kunka qof ee lagu xidhay urur walba. Kadib markii ay dhameeyeen tirinta guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland waxa taageerayaasha urur siyaasadeedka Barwaaqo u mahad celiyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee ururka Barwaaqo iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka Barwaaqo. waxaanu hadda ka soo dareernay dhamaystirkii madaxtirsiga kunka qof. waxaan halkan u fadhinaa inaan maanta u mahadnaqno dadweynihii ilaa xalay ilaa saaka isugu soo baxay xarunta lagu tirinayo madaxtirsiga ee ururka Barwaaqo oo soo buux dhaafiyay goobtii loo asteeyay. dadkaasi way u soo daaleen, way u soo jeedeen, way u gaajoodeen. waxaan leenahay waxa aad u daasheen ee u soo jeedeen wax weeyaan inaad ka mid dhalisaan himilada ka mid noqoshada Barwaaqo inay ka mid noqoto asxaabta qaranka Soomaaliland ee u tartami doonta doorashooyinka dalka soo wajahan. aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa guud ahaan gobolka Saaxil gaar ahaana dadweynihii Berbera isugu yimiday ee goobtaasi shucuurtooda ku muujiyay waan u mahad celinaynaa. waxaan kaloo u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo sugay ammaanka in dadweynaha inta la goob isku soo baxayaan nabadgelyadooda ay sugaan. waxaan halkan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha ururka Barwaaqo oo ku sugan bariga hase ahaatee u igmaday ragiisa inay goob kasta iyo gobol kasta ay iyagu hawshooda iyo waajibaadkooda ka gutaan. farriin uga dirayna iyo bogaadin dadweynaha reer Soomaaliland ee ku kala sugan 6 gobol ee waddanka oo runtii gobolladii ay ka soo qabsoontay hawsha madaxtaabashadu si weyn u muujiyey inay diyaar u yihiin inay difaacdaan xuquuqdooda dastuuriga ah isla mar ahaantaana ay xeer ku jideeyeen ee ah in 10 sannadood mar la furo ururada. markaas si guud ayaanu hambalyo ugu diraynaa dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan 3 gobol ee hawsha madaxtaabashada ay ka soo dhamaatay oo kumanaan iyo boqolaal ay isugu soo baxeen dhammaanba hawsha madaxtaabashada ee ay gacanta ku hayaan guddiga diiwaangelinta iyo ururada siyaasadda. haddii aanu nahay ururka Barwaaqo waxaanu si gaar ah ugu diraynaa hambalyo iyo bogaadin dadweynaha gobolka Saaxil ee maanta isugu soo baxay magaalada Berbera ee cududooda ku muujiyey oo runtii kumanaan qof isu soo baxeen tiradii looga baahnaa ururka Barwaaqana dadku ay aad iyo aad runtii ay uga tiro badnaayeen. guddiga diiwaangelintuna ay shaqadoodii iyo waajibkooda ay ka qabsadeen. marka dadka reer Berbera iyo dadka reer Saaxil waxaanu leenahay runtii cududina ayaa muujiseen waxaana u guuleyseen nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland si guud si gaarada ururka Barwaaqo. dadweynaha ku sugan 3 gobol ee haray gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag iyo gobolka Sool iyagana fariintan halka u soo marayna waxay tahay sida ay 3 gobol ee hore u muujiyeen ururka Barwaaqana uu guuleystay shuruudii looga baahnaa madaxtaabashada inay iyaguna diyaar garoobaan. si kastaba ha ahaatee ururka Barwaaqo ayaa gobolkiisii saddexaad si xidhiidh ah guul uga keenay. Jaamac Xuseen Jaamac Dude, Somali Cable TV, Berbera.